sacad bin mucaad markii uu dhintay waxaa gariiray carshigii alle waxaana aaskiisa ka soo qayb galay 70,000 oo malag. intaan u sii gudagelin qisadeena fadlan janalka subscribe garee gambaleelka furo si ay ku soo gaaraan mar walbo aan soo gelino barteena YouTube muuqaal. mahadsanid. sacad bin mucaad wuxuu soo islaamay asigoo 30 jir ah wuxuuna geeriyooday asigoo 36 sano jir ah. sacad bin mucaad wuxuu dhashay 19 sano ka hor soo saaristii nebiga sallallahu calayhi wasallam. nebiga ayaa ka weynaa 21 sano. saxaabigan qaaliga ah wuxuu ku soo islaamay gacantii Muscab ibn Umayr isla markiina wuxuu u tagay qoomkiisa oo ku yidhi raggiina iyo dumarkiina lama hadlaayo oo hadalkiina xaaraan ayuu iga yahay ilaa aad ka soo islaamtaan. wayna islaameen kulligood. sacad wuxuu ahaa qof hadalkiisu yar yahay laakiin geesi ah dadkuna way jeclaayeen. waxyaabaha taariikhda galay ee sacad uu qabtayna aad bay u badnaayeen. dagaalkii badar wuxuu qaaday calankii ansaarta waxa uuna soo jeediyey khudbad macaan badan oo uu xataa rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu jeclaaday aadna ugu farxay. waxaana ka mid ahayd khudbadiisa ee uu yidhi rasuulkii allow allihii xaqa kugu soo saaray baan ku dhaartay haddii aad badda gasho annagana waxaan nahay kuwa kula galaayo. wuxuu u dhisay meel yar ee uu kala socdo dagaalka wuxuuna ka istaagay albaabka isagoo ilaalinaya oo difaacaya rasuulka sallallahu calayhi wasallam. markii uu dagaalkii adkaaday geesiyaashii ku haray rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayuu ka mid ahaa sacad bin mucaad. hase ahaatee dagaalkii qandaq sacad bin mucaad waxaa soo gaaray dhaawac uuna u dhintay bil kadib. balse intuusan dhimanin ayaa rasuulka sallallahu calayhi wasallam ku yidhi reer bani qurayda maxaad ku xukumi lahayd? wuxuuna ku xukumay ee uu yidhi dagaalyahanadooda hala dilo dadkoodana hala khafaasho xoolahoodana hala qaybsado. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi waxaad ku xukuntay xukunkii alle subxaanahu wa tacaala. markii uu dhammaaday arrinkii reer bani qurayda dhaawacii sacad waa uu sii darsaday. xanuunkii ayaa ku siyaaday. rasuulka sallallahu calayhi wasallam ayaa soo qaaday intuusan dhiman sacad madax ayuu dhulka u dhigay maracad ayuuna ku duubay wuxuuna yidhi allow waxaan markhaati ka ahay inuu sacad u dagaalamay adiga dartaa waana uu gutay waajibkiisa ee aqbal ruuxdiisa sida ugu fiican ee aad ruux u aqbasho. sacad markii uu maqlay hadalkii rasuulka sallallahu calayhi wasallam indhaha ayuu kala furay wuxuuna yidhi nabadgelya korkaaga ha ahaato rasuulkii allow allahana kaa abaalmariyo. kadibna waa uu dhintay. markii ay qaadeen dadkii janaasadiisa ayay dhaheen aad ayuu u fududaa wuxuuna ahaa nin culus. markaasuu rasuulka sallallahu calayhi wasallam uu yidhi alla ayaan ku dhaartay cid aan idinka ahayn ayaa qaaday. malaa'ig ayaa ku bishaaraysatay sacad waxaana gelgeshay oo gariiray carshigii raxmaanka. subxaan allah. rasuulka sallallahu calayhi wasallam wejigiisa ayaa isbeddelay tasbiix iyo takbiir ayuuna ku dhawaaqay wuxuuna sheegay oo laga wariyey in 70,000 oo malag ay ka soo qayb galeen aaskiisa sacad bin mucaad.